golaha deegaanka degmada berbera 2018 wuxuu dejiyay miisaaniyadda qorshaha 2019 wuxuu ugu daray maadaama degmo doorashadani ay hoos yimaadaan halka xildhibaanada laga soo doortay degmooyin fara badan sida Laasciid leh Xagal Mandheera iyo maxaan ku radaa gooda weyn kastoo degmada Shan ka tirsan tahay iyo Bulaxaar mar walba halkan waxa lagu gurmadaa nabadgelyaduna waa mudnaanta koobaad saacada wasiir wax kasto oo aan qabano waxa ugu horeeya waa nabadgelyo shaqadaan qabanana waxa ugu horeeya waa nabadgelyo anagu Booliska waxaan isku nahay hal qof aan isku nahay waxaan halkan ka mar walba xaalad ka soo timaada haddii ay dhuxul lagu saano dhuxul laga cabanayo waxaan dirnaa gaadiid baan dirnaa iyo Booliis marka qorshe 2019 degmooyinka Laasciid iyo Xagal iyo Mandheera iyo Bulaxaar iyo Goodaweyn oo aan waraanay duruufta gaarka ay leedahay ayaanu u sameeynay in maadaama kolba gaari la dirayo gaari goobta jooga oo Booliskoodu ku filan yahay adeegyadooda inay qabsan karaan ayaanu qorsheynay go'aankaasi waxa iskale cida shaqada maamushaana qorshaygu sidaa weeyii waxaan bartaaba ku wareejin doonaa furayaasha deedna waxa ku wareejin doonaa wasiirkuna waxa ku wareejin doonaa jalanka marka aad farxad noo tahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sakhiro qorshihii aanu sii diyaarin inuu noo fulo soo sanadkuna gabagabadu sii jeedo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin marka hore Ilaahay baa mahad leh dhamaantina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii mudane wasiir mudanayaal gaadiidkan hadda aan idinku wareejinayno waa gaadiid marka hore aan baahidiisa aragnay markasta oo degmooyinka nabadgelyada waxaanu maxaan ku raday ku qabanaa inta aanay dhaafin halka ay wax ka dhaceen waxay nagu kalifi jirtay gurmadka aanu galayno marka qaarkood baabuur kireysano oo Booliska loo kireeyo ay nagu kalifi jirtay taasaa keentay in golaha deegaankuna kal fadhi ka yeesho ansixiyaan 95 gaari inay Booliska u iibiyaan si loogu sugo guud ahaan nabadgelyada gobolka ay ku bixiyeen golaha deegaanka ee degmada Berbera gaadiidkaas marka hore Laasciid leh Xagal maxaan kula Bulaxaar Mandheera gooda anugu talabaahiyan ka soo warinayd laakiin gaadiidku waa gaadiid Booliskana waxa maamulay wasiirka arrimaha gudaha saacad wasiir waxaan kugu wareejinayaa marka shantii gaari ee la igu soo wareejiyay furayaashoodii ayaan aniguna kugu wareejinayaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسيرة مأمور كقبل كيدقمدة تريكوحينك عيدك بوليسكا سراكيش بوليسكا سراكيش قبل كيدقمدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markasta oo aynu hawl qabanayno waxaynu doonaynaa barnaamijka aynu qabanayno dawladeed marka laga soo bilaabo dawladda dhexe gobolka degmada inaynu sameeyno barnaamijyo aynu doonayno inaynu horumarin ku gaadhno sidii ka muuqatay barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye ee ololaha doorashada uu ku soo galay ee madaxweynaha lagu doortay xukuumadda barnaamijyadeeda xukuumadeed waxa ugu horeeya waa koow waa nabadgelyada waa laba waa barnaamijyada horumarinta caafimaadka waxbarashada biyaha inta adeega bulshada la xidhiidha waxaanu la soconnaa markaa inaynu maxaan ku dhahdayay barnaamijyadeennan marka aynu doonayno inaynu hirgelinno nabadgelyo meeshay jirto ayaa nidaamna jiri karaa horumarna jiri karaa magaalada Berbera waxay ahayd waa magaalo xeebeed ilaa iyo taariikh fara badan markaa tagto xabaalihii saadada masaajidkii Turkiga biyagu maxaan ku dhahdayay dubaar biyihii Turkigu uu soo geliyay waxyaalo fara badan baa markan halkan laga helaya sida laasliga Berbera waxay ahaan jirtay xadaarad fara badan bay lahaan jirtay Berbera waxay ahaan jirtay magaalo aan qabyaaladu ka shaqaynin ee laakiin xadaarada iyo albaxnimadu ay ka shaqayso
waxaynu doonaynaa inaynu magaalo kasta iyo meel kasta iyo miyiga iyo dadkeenna waynu ognahayo dad waxaynu ahayn xoolo dhaqataa waxaynu ahayn dad maxaanku idhahdaa baadiye ku nool xilliyadii gumaysigu uu yimi iyabaa inoogu horraysa magaalooyin taabagala marka laga reebo magaalooyin yaryar oo ilaa yaa maxaanku dhahdaye turkidiis maxaanku dhahdaye cumaaniintiiti maxaanku masaaridii meela yaroo saylac iyo berberiya baa ugu soo horraysa waxaynu doonaynaa markaa inaynu horumar gaadhno horumarka waxaa ugu horreeya waa nabadgelyada nabadgelyadana waxaa ilaalinaya waxaan lahahdaa law and orderka ilaalinta nidaamka sharciga dadkeennuna wuu necab yahay in la ilaaliyo nidaamka sharciga waxaad arkaysaa biliiska iminka anigu wasiirka daakhiliga nahay waxyaalaha maalin walba ii yimaada ee biliiska u yimaada waxaa ka mid a gacan ku dhiiglii baa loo dacweeya dabadeedna waxay noqota gacan ku dhiiglihii baa la ilaalinayaa gacan ku dhiiglihii baa rag hublihi ay ilaalinayaan dabadeedna waxay keenaysaa meelo doora inuu sii fido dabadeedna mid kala yimaado waxaynu doonaynaa markaa inaynu kow nabadgelyada ilaalino gaadiidkan degmada hawshan ay qabteen waxay u baahan tahay waxay qayb weyn ka qaadanaysaa nabadgelyada degmadan iyo degmo kastaba iminka burco degmo quroo degmo doorashaa ma leh degmooyinkeedu waxna gobol bay noqdeen wixii kalena degmooyin bay noqdeen hargeysa degmo doorasho waxaa kaga hadhay degmada salaxad boorame gobolka awdal degmo doorashooyinkii waxaa kaga hadhay agabar iyo lughaya labadaasaa kaga hadhay marka iyo baki waxaynu u baahan nahay markaa berbera waxaa kaga hadhay sheekh baa degmo doorashooyinkii kaga hadhay waynu koraynaa maamulkeenna wuu fidayaa sidaa laasligeed baa keenaysa in degmooyin fara badan ay abuurmaan degmooyinkaasi dhaqaalihiina weydinla wadaagaan aad inaad qayb weyn iska saartaanoo degmooyinka qaybka weyn iska saara ee ugu horeeyana waatiin laakiin waa lasii kordhinaya sanadka soo socda miisaaniyadda cusub ee degmooyinka wasaaradda daakhiliga ay samaynaysana tiradan ka badan baynu gelin doonaa maxaanku dhahdaay gaadiidka oo security-ga la ilaalinayo reer berbera waxaan leenahay markaa magaaladan waxaynu doonaynaa inay noqoto magaalo ganacsiga laga quudinayo dhammaan maxaanku dhahdaayey dalal doora oo aan dekada lahayn iyo kuwa dekadalaba oo geeskan afrika ku yaala laba waxaynu doonaynaa inaynu sidaynu taa u helno bbld imika dee dekada way ballaadhinaysaa lacag bay gelinaysaa riboortka lacag baa la geliyey meelo fara badan lacag baa la gelinayaa si lacagtaa loo geliyo koridorka lacag baa la gelinaya si lacagtaa loo geliya nin baa lacagtaa leh danay leeyihin waynu dantoodana waynu iska eegaynaa xidhiidh iyo heshiisyana waynu wada gallaa laakiin waxay u baahan yihiin dadkaasi marka ay yimaadaan inay helaan dad maxaanku dhahdaayey dhulka degan oo gobolkan degan iyo gobolada kaleba oo ay yidhaahdaan waxaanu ku aaminaynaa lacagteedii 400 milyan 500 milyan 600 milyan ayaa la gelinaya oo nin iska leeyo jeebkiisa ku sita kaas waxa u baahan inay naga muuqato dadkaas inay nagu soo heli karno adduunyada imika waa isku xaafad maxaan ku dhahdaayay imika ka soo qaad dalka Turkiga 100 iyo intaas iyo 50 dal ay dekadahooda maamulaan DB World Mareykan baa kamid ah Europe baa kamid ah Turkiga kamid ah adduunyada dhan hadda imika Somaliland laynama aqoonsana haddana iran waxay imika inoo jooga 3 shirkadood 2 shirkadood oo mid dalalka ugu waaweyn oo Yurub leedahay inda khaliijadan iyo dalalkan iyo dalalka loo reer Yurub ay shuraaka ku leeyihiin oo Somaliland ka sameynaysa sahmin baashidaal waa غير العادي in shirkado dalan la aqoonsanin inta isaga yimaadaan billions lagu shubo oo la shaqo laga baaro injineerkan Ibrahim shirkadan Ganel
oo waa injineerkii consultantka ka gaastan gadar ku faantay imika daadka raggii soo saaray weeye ayaa maalin la hadlayay dadweynaha wuxuu yidhi shidaalka helistiisu waxay ku xidhan tahay xabad beriis soo badweyntaa lagu tuuray oo lagu yidhi soo hel labada shirkadood waxay hadda dhammeeyeen in ka badan 3,500 oo kiiloomitir oo iskuweer degmada berbera ka mida kan wadadan xagal iyo marta ayaa ka mida intiisa badan way dhammeeyeen hadda waxay ku jiraan markii la akhriyey wixii la sameeyey iyo daatadii oo dhan haddana raja u muuqatay oo taataabasho yaryaroo dambe hadda ayay ku jiraan si ay hawshan u suura gasho inaad dhegaysanayseen in kale mooyaane ninkii shirkadda ganeel ka ahaa maxaan ku dhahdaa madaxda wuxuu yidhi 2019 Somaliland qoditaankeedii bilaabayna waxaanu naxasuusinayaa shidaalkii aanu ka hadlay Uzbekistan daad dumbaabay imika ka helano waa dalalka maanta shidaalka badan leh 3 sababood isku heli mayno shay waa Somaliland oo dhan waa sheeko yar oo xun oo la yiraahdo qabyaalad isku heli mayno nabadgelyada inaynan ilaalin ninka nabadgelyo darada wadana inaynan maxaan ku dhahdaa inaynan wax ka qabanaynin isku heli mayno nidaamka duwaliga iyo nidaamka maxaan ku dhahdaa law and order ee nabadgelyada inaynan ilaalin oo dawladda kula shaqaynin yes معارض وجريا dalka معارض baa looga baahan meelan معارضku waa culayga weelkan xoolaha lagu meeday annaka soo marnay inta soo sanadood baan معارض ahayn sidaan u diidnay imika kulmiye iyo dawladdiisa iyo tii ka horeysay معارض lagu noqdo in معارض lagu ahaado lama diidayo معارضna waa معارض nidaam dawladeed iyo sharciyadina maxaan ku dhahdaa waa nidaam reer berbera marka waxaan doonaynaa halkan waxaynu doonaynaa number 1 inay noo noqoto weelkii adduunyada halkii aynu adduunyada ganacsiga iyo maalgelintu nagala soo xidhiidhisay waxaynu doonaynaa maxaan ku dhahdaa meeshii laga soo degayay xooluhu ka yimanayeen xooluhu ka dhoofayeen inay maxaan ku dhahdaa noqoto waxaynu noqonaynaa dadkii weelka lagu aamini lahaa ee lagu soo hiloobi lahaana inaynu maxaan ku dhahdaa noqono berber waxaynu doonaynaa waayeeni berberedeedii ku noqoto berber waxaynu doonaynaa inay korto berber waxaynu doonaynaa inay aad iyo aad aynu hawsheeda mudakar uga noqdo waan ku ammaanayaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee miisaaniyadoodii sanadkan 2019 ku daray waxaan ku dhahdaa gaadiidkan imika halkan yaala waxaynu qorsheynaynaa ama degmooyinka maxaan ku dhahdaa ha noqoto ama halkan aan doonaynaa inaan ka aasaasno xero iyo ciidan gurmadka biliisku leeyahay oo marka maxaan ku dhahdaa ay waxyaalo yimaadaan halkan maxaan ku dhahdaa laga gurmado oo maalinba la odhanin maxaan ku dhahdaa meel heblaaya laga soo qayliyay meel heblaaya laga soo qayliyay inaynu halkan ka sameeyno kuwaasaan annakiina u qorsheynaynaa markaan isla aragno taliyaha imika ciidanka biliiska iyo xogayaha يا بعض الصحافة دلوقتي محمد كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا وشيء وزير كارمها قدها قاعدين كان ما يركو وقلت القل عيدك بلس قلت ما يركو وككوبات هاد يتصل عيدك بلس كعنت هاي قاعدين كان معك وكانه gaadiid howlaan kugu saraa oo laba iyo dhowr xaajeedood baabuur badan uu iibiyay oo qaybta ka howlgeliyay baa jiray ka hor inta uu santankiin waa nin hadii ciidanka dhismihiisa iyo la socdo noloshiisa waa nin ciidankiisa gacansiya waana maayirka keliya runtan sheegayay ee ku soo kordhiyay ciidanka bilayska gaadiid iyo wax qabadba inta aadan ka gudbo waanan ku ammaanayaa abaalkeeda iyo wanaageedana waa hayna qarankuna waa ogyahay halkan xeraa laga asaasayay fikrahaan xeraas waxa loogu talagalay ciidanka birmadka ciidankaasi waxa la doonayay inuu noqdo ciidanka ilaalinaya dekada haamaha suuqa ganacsiga xorta la sameyn doono qodista sidaalka iyo mid walba waxaan laga rabay in ciidan mobile ahaado annagu qorso ahaan ciidan aan inkastoo wasiirkii ay joogaan iyo maamulkii gobolka iyo maayirkiiba annagu qorsaan ka lahayn gaala inay noqdaan gaadiidkaasi
gaadiid ay adeegsadaan 100 askari ee ciidanka ay gaalka u tababaran halka soo degaya oo qaarna 2 qoryo loo saaro saddexna ay noqdaan mobile oo ay ku lagu guuri karo markii loo baahdo laakiin wixii ay dawladdu ku taliso ama wasaaradda ama maamul ku taliyana waxba kama qabno oo waa la qaadanaynaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa maayarka iyo gudoomiyaha gobolka xero weyn halka ay ka dhiseen xeraas oo lagu talgalay ciidanka run ahaantii xero wanaagsan bay dhiseen xerada radideeda ciidanka la keeni karaa waxba wali annagu waa hagaag